ولدا وحنا برنامج شي حسابنا tartanka halaburka ganacsiga jaamacadaha dalka oo groupkan uu yahay groupkii saddexaad oo shan jaamacadood ku tartamaya jaamacadahaasi oo ah jaamacado kala duwan oo ka yimid gobolada Sanaag Awdal iyo Maroodijeex dhammaantood baan hambalyeynay ardaydii kala duwan ee barnaamijka ka qayb qaatay waxaan u mahadnaqayaa intay halkan inala daawanayso si deeran barnaamijka uu saxabtimay dadkan uu dhiirigelinayay iyo xubnaha guddiga waxa kale oo bogaadinaya bangiga caalamiga ah Premier Bank oo sanad kasta si joogto ah u qabta barnaamijkan waxaan u yeedhi doonaa qofka gruubyadii halkan ku tartamay group walba qof kamid ah ardaydii tartantay shantii kooxood qof walba oo kamid ah halkan ayuu iman doonaa wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka xisaabana la tartanka halaburka ganacsiga jaamacadaha dalka sanadka 2020 oo maalgelinayo bangiga caalamiga Premier Bank waxaan marnaa wareegii saddexaad shantii group ee caawa tartamayay halkan garabkayga waxa taagan shan group oo ka kala socda jaamacadaha kala duwan ee dalka dhammaantood baa waxaan rajaynaynaa inay guuleystaan waa jaamacadaha ka kala yimid Hargeysa Awdal iyo Sanaag waxaan ka soo bilaabi doonaa dhinaca Mawlaasiya inamadan siinaya Maxamed Saalax ma ka bilaabaya Maxamed Saalax habeenkan caawa maxaad ku naqdiyaysaa barnaamijyada halkan yaala ee kula dhigaaga ah maxaad si kaaga aaminsantahay inuu ka iibsamayo barnaamijyadan caawa ee guddiga oo ka doortaan bismillaahir rahmaanir rahiim anigu saaxiibaday dhammaantood hambalyeynaya waxaan sheegayaa anigu dhinaca tugnaanteeda iyo maxaan ku dhahdaa waxyaabahan anigu iyaga kaga duwanahay horta marka koowaad waxba isma dheerdheerin xagga natiijooyinkii hore markaan xisaabtii maskaxda isu geeyay laakiin saaxiibaday waxaan leeyahay anigu maanta waxaan iibgeynayay uun khayraadka waddankeena waxaan indhaha ku jeedinayay uun maalqabeenadeennan China xataa loo fadhiyo ee qalabka ka soo iibsanaya inay marmar dhacdo in waddankeena magaalo ka mid ah ay noqoto shan taraalka maxaan ku dhahdaa badeecad ka mid ah badeecadaheena laga iibiyo dunidayna daawanaysana waxaan u bandhigayay maxaan ku dhahdaa in dalkeenu hodan yahay khayraadkayga iyo ganacsigaygana aan abuurayna waa ganacsi waafaqsan shuruudihii ay u dejiyeen guddida maxaan ku dhahdaa tacliinta sare markiskii xaashidii horaan soo eegay runtiina warqadaasi haddaanay la soo hadlin amba waxa maanta aad baa laysii qabsan lahaa waxaan aaminsanahay saaxiibaday inay dadaaleen inaanse caawa ka mudanahay aad baad mahadsan tahay waxaan rajaynayaa waqtigeena soo koobno qof walba uu dedejiyo muddada uu sheegayo waxa naqdinta iyo sidoo kale waxa barnaamijkiisu ku fiican yahay arday kala socda jaamacadda adna Rift Valley magaalada Hargeysa Xamse ayaan jecel barsiina weydiin kelmaddaas horta ugu horeyn haddii aan ka bixiyo commenti barnaamijkani soo abaabulay fikirkiisa uu lahaa Professor Umar aad iyo aad baan runtii ugu bogaadinaya barnaamijka u dhalinyarta iyo mustaqbalka waddanka ugu sameeyay runtii ay ka dheefi doonaan haddii aan ugu galo barnaamijkayga iyo projectka aan watay waxa uu kaga duwan yahay kagana faa'iidada badan yahay projectada kale ee ardayda iyo aqoonyahanka kale ee walaalaha ay soo bandhigeen horta ugu horeyn waxaan badbaadinaynaa waa naf runtiina marka naf iyo isbar bardhigay product kale oo soo saariso qodobka koowaad ee dooranaysa waa inaad naftaada badbaadiso marka hore oo lacala maanta product soo saarayso haddii aanad hinba qofkii ka iibsanayay ama uu ka fikirayo qofkaas si caafimaadka ka la tacaasha dabcan ka fikiri maayo qofkii iibso foox ama uu siguriga ka shito ka fikiri maayo wuxuu ka fikirayaa caafimaadkaaga marka hore meel saar markaas wixii kale gurigu u baahan yahay ama ay xaaska u baahan tahay ama wixii kale iska carfinay iska gooneenay soo iibsan karaysaa arday kale isaguna ku tartamayay badbaado oo jaamacadda galka socda isaguna bartay nidaamka elektroonika maxaad ku difaacaysaa barnaamijyada kale maxaad ku naqdiyaysaa caawa bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamaya dhamaantiinba walaaladay horta waxay soo jeediyeen fikrado wada wanaagsan mid kaliya lama oran karo fikrad horta ninkaas khayraadkii buu dalku soo saaraya laakiin in khayraadka dalka la soo saaro in dadkii la badbaadiyaa ka horeysan oran karaa aduna fikirkaaguna uu wanaagsan qof walba intiisa la sheegay fikirkiisu wallahi wanaagsan inanka walaalkay waxaan leeyahay aduu niyo caafimaad baa tahay caafimaadkuna waxa weeyaan qofka markuu xanuunsado un baa la daweynaya anigu laakiin waxaan ka hortegayaa in dadku ku dhintaa shilka gaadiidka laakiin qof dhintay lama badbaadin karo fikirkaaguna wanaagsan walaal hablaha waxaan leeyahay horta xaga ku sii badan maayo laakiin hablaha waxaan leeyahay dadkii ku ciyaari lahaa balay garoonkiina meeshiina waxa soo raaceen gaari
dee lama damaanad qaadi karo gaarigani inuu ninku darawalka siduu doono wado marka waxaan leeyahay anu dadkii idinka nii imanayay unbaan badbaadinaya fikradiinuna dhammaantiin wallaahi wanaagsan yahay mid keliya ma odhan karo wuxun yahay aad baad umahadsantahay asma samayn asma waxaad arkaysaa ninkii beerta waday iyo ninkii kale electric iyo ninkii dhakhtarkii wadda hawshiisa uga hadleen hawshu idinkeedi maraysaa iminka waxaad haysaa qaybtii qurxintii gaadiidkii guryaha maxaad leedahay adigu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadnaqayaa professor mubaarak aar oo fikirka lahaa oo runtii kasoo shaqeeyey iyo premier bank oo isaguna maalgelinayay haddii aan usoo daadego su-aasha horta qofna dhaliil ma laha qof kasta wuu soo fikiray qof kasta tacab baa soo galay waqti buu u huray qof kasta wuxuu jeclaa inuu guulaysto oo bartan ugu yimi dadaalka u sameeyey qofna dhaliili maayo oo qof kastaba fikirkiisa la saxsan oo anigu ma jeclin in lay dhaliilo mana jeclin fikirkayga wax laga sheego marka dhammaantiin waxaan leeyahay horta kii guulaystaaba waa inagii waana jecelnahay in wax dalka lagu soo kordhiyo waana jecelnahay in horumar la sameeyo waa laga yaabaa haddii dee maanta aad dhaliisho qofkan waxaa laga yaabaa inuu guulaysto aduu beritoodaa shaqo u doonato qofkaad shalay dhaliilaysa intaad shaqo ku doonanaysaa waxaan odhan karaa laba qodobba markaan dadka waan kaga duwanahay marka la eego sida dhaqaalaha loo sameynayo si yaroo fudud baa loo sameynaya dhaqaalaha oon tacab badan ama kharashaad badan aanay kaa baxaynin waxaana odhan karaa xirfaddu waa wax aada u muhiima oo aynu baahan nahay maadaama iminka marka la eego aqoonteeni ay u badan tahay tieri waxaan jecelnahay inayn u gudubno dhanka gacanta iyo tekniigga si aynu u noqono dad horumaray waad mahadsantahay aad baad umahadsantahay amal maxaad ku daraysaa adigu anigu waxaan ku darayaa gebiba inaan ka wada duwanahay waayo anu waxaan waa fikir cusub macaamiishaydii waad arkaysaan waa diyaar uma raadinaya suuqgeyn badan ninkaa fooxana waxaan leeyahay haddaanay ciyaal ku faraxsanayn cidba foox ka iibsan mayso aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba waxay idin rajeynaya inaad guulaysataan dad fooxaysay iyo dad carruurta barbaarinaysa iyo haddaad dadka badbaadinaysa iyo qaybtii caafimaadka dhammaantiinba inaad guulaysataan baan idin rajeynayaa halkan dhibcaa ku yaala intaana guddida gelin waxaan eegi doonaa qiimeyntii dadweynaha laakiin waxaan jeclaa inaan idiin sheego 100% go-aanka dadweynuhu ka lagu go-aan qaadanaya maaha laakiin qayb buu ka noqon doonaa in fikirka go-aanka ugu dambeeya kolle guddida gaadhayso markay qiimeeyaan dadku si u hadleen iyo qodobadii hore yaallay waxna ka bedeli karaan waxna ku dari karaan sidoodii inuu ku dayn karaan waxaan ka bilaabayaa maxamed saalax oo midigta taagan baan ka bilaabayaa imise qof baa u codeeyey caawa barnaamijka maxamed saalax inuu guulaysto oo foox loo keeno waad ku xisaabtay maxamed salmaan wuxuu leeyahay waa macaamiishii hargeysa waxaa halkan taagan nin isaguna qaybtii caafimaadka bartay codkaasi imsahan 720 waa tahay halkan waxaa fadhiya nin isaguna xamse oo ah qayb caafimaadka oo dhiikarkii macaankii iyo xanuuno badan la eegaya waxaa laga yaabaa waalidiintii iyo in badan oo ka mid ah in xidhiidhsana la sameeyo idila xidhada isaga laftigiisu xamse imsaa gacanta u taagay oo hawsha caafimaadka u baahan sagaal xamse waan hambalyeynaya isagana halkan waxaa taagan nin kale suguna dhinacii gaadiidka soo galaya xamse waa xamse kale oo ka baxday jaamacadda golis aqoontiisii jecel inuu ka shaqaysiiyo waxaa laga yaabaa dhammaantiin inaad gaadiidooda raacdaan xamse caawa imise codka siisay oo gaadiid ka badbaadaysa jecel saddex iyo 20 waa la isku dhow yahay waa la soo hayaa halkan waxaa ka taagan asmi in badan waxa laga yaabaa jaacadiina qalinjibintiina idii dhowdahay qalinjibinimo ka shaqaysaa decorationkii qurxintiiba ka shaqaynaysaa imisaas ma jecel in macaamiishooda noqoto halkan caawa codka in ay siiyaan gacanta kor u taagaan waa tahay 16 aad baa mahadsantihiin waxa ugu dambayso halkaa taagan waa amaal oo ka socota jaamacadda Adelaide Boorama iyadana waxay ka sheekeynaysaa qaybtii playground diska carruurta inay u diyaariso waxaa laga yaabaa in carruur guryaheedii jooga laftigiina qaarkoodna ay waalidiin ba yihiin sida amaal oo kale oo hooyaa imise amaal jecel inay macaamiishooda noqoto ama kastamarkooda carruurta geeyaan garoomadaasi ee lagu ciyaarsiinayo gacanta kore u taagaan sideed iyo 20 aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiinba waan idinku bogaadinaya inaad dhiirigelisaan dhalinyartii halkan taagnaa inaad ka heshaan bay muujinaysaa fikradaha qiimaha badan ee soo bandhigan iyo barnaamijka xiisihiisa
oo ah in dhalinyartu ay keenaan halabuur ee socon kara oo iibsami kara waxa kaloo bulshada barnaamijka tooska u daawanaysa bisha barkaseen rabadaan tan anigana u rajeynaya inay la xidhiidhaan ardaydaasi ku guulaysay kuwaan guulaysanba sidii ay u dhiirigelin lahayn ama ay qayb uga noqon lahayn fulinta mashaariicdaasi oo aanay naga noqon qaar khasaara tacabka ardaydu halkan ay la yimaadeen waxaan kelmad siin doonaa xubnaha guddiga intaanaan go-aan ku dhaqaaqin runtii waa gabagabadii baynu joognaa wareegan caawa shanta dhalinyar ee barnaamijyada kala duwan fikradaha kala duwan ee ganacsi ku tartamaysay runtii dhammaantood aad baan u halmaliyanaynaa dhammaantood waa guulaystayaal haddii shuruudaha meesha yaalla ay oggolaanayaan inaan dhammaantood aan u magacawno inay guulaystayaal yihiinna waan u magacaabi lahayn laakiin kulley saad la socotaan waxaana qasbaya oo xadidaya budgetka yaalla iyo qorshaha yaalla oon ku qasbanay inaan midkiin kii ay nambarka u badatay la yidhahdo kaasa caawa intan ka soo hadhi doona inta kalena waa la fasixi doonaa taas waa nidaamkii waxaan intaa raacinayaa guidelines tallaabooyin aan wax ku qiimaynaa jira marka wax suurtagala annaga iyo dadweynaha daawanaya codeeyey inaan kala doonaana xataa suurtagala dhinacyada aan rabno inaan ka eegno iyadna processkan marayno darteed weeye taasi waxaan ku soo gebagabayn lahaa aad bay runtii afkaartooda qurux badan tahay qof kasta oo fikir ganacsi hayaayna dee meel au soo gaadhsiiyey oo bandhiga u sameeyey marnaba kagama hadho waxa aad ku soo jiidanaya cusaybka ay afkaartiinu leedahay iyo siday madhadhal u noqon karaan aad baan idinku hambalyaynaynaa waan idin dhiirigelinaynaa waan idin ducaynaa insha allahu tacala dhammaantiin bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad habeenadii sii horreysayna waan sheegay waxa u muhiimsane aanu runtii wax aanu ku eegayna qiimaynteedu horta waxa weeyaan waa cadaalad sida ay nala noqoto ilaahay baa cadaaladda haya laakiin sida ay nala noqoto saddex arrin waan ku talinayaa midna waa comment ama recommendation wixii aan ka arkay runtii tartanka iyo ardayda wax soo bandhigtay dhammaantood ardayda iyo jaamacadaha kala duwan ka socota ee barnaamijyadan iyo kuwii hore soo bandhigayba waxaan odhan karaa waa fikrado wax ku oola oo u baahan in la dhaqaajiyo oo haddii ay halkan ka hadhaan laftarkeeda aan laga hadhin marka aad baan runtii u bogaadinaya imika tusaale ahaan oo kale sidaa ismaaciil sheegayda criterian u eegaynay waxyaabaha bisanisyada qaar oo badankooda aan u eegaynay laakiin de qaar baad odhanaysaa interestina laakiin dee rabitaanka yaga iyo fikirka yaga kuma eegayne wixii loo dejiyey ee shuruuca ee la raacayay ee guideline nala siiyey ayaanu runtii ku eegaynay marka dhammaantood waxaan u aragnaa fikrado wanaagsan oo wax ku oola waxaan isna ku talin lahaa waxaa jira fikrado badan oo ganacsi oo dad tijaabiyeen laakiin u baahan in waxna lagu kordhiyo lana gacan qabto muhiim u yahay noqon in la yidhaahdo qofka fikrad cusub keen laakiin dad waxaa jira iyaguna intay wax ikhtiraaceen jeebkooda gacanta geliyey lacag doontay wax bilaabay fikirkoodaasi uu baahan yahay kobcin marka bangiga sanadada dambe waxaan odhan lahaa iyaguna inay ku darsadaan taa qorshaha qodobka u dambeeya recommendationki waa ardayda tartamaysa haddii ay kuwan iminkayna hor taagan yihiin iyo kuwa soo socda iyo kuwii hore tartamayba fikirka waa la heli karaa fikrado qurux badan baa runtii ay dhammaantood soo wada bandhigayaan laakiin waxa muhiima waa hirgelinta iyo implementationka taasina waxay u baahan tahay cid khuburo ah inaad la kaashataan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay fikrad helista ku fiican yihiin qaarna ay implementationka iyo khibradda iyo waxoo dhan ay ku fiican yihiin markaa bal inuu qofku uga soo fakaro fikirkii as a business wise oo xisaabaad uu la tashado oo dad marketers uu la tashado oo macni angle kasta oo ganacsi uu talo ka runtii ka soo ururso fikradda waad keeni kartaa laakiin implementationka ayaa runtii muhiima aad iyo aad baa u mahadsantihiin horta dhammaantiin waan idin hambalyaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba iididiilo weyn bay runtii ku gelinaysaa markaad aragto dad dhallinyaro ah oo afkaar qurux badan iyo ganacsiyo muddo kale oo meelmara soo jeedinaya difaacaya si codkarnimo leh runtii maaragtay isu difaacaya runtii in business la sameeyo ama ganacsi in la sameeyaa hawl yar maaha
oo had iyo goor markay dhalinyaradu tartamayaan ama la yidhahdo tartan baa la gelayaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu qofku intuu ordo uun fikrad la soo cararo fikraddu ay fiican tahay laakiin farsamo ahaan sidii uu fikradda u soo bandhigi lahaa iyo qorshihii ganacsiga ama business balaankii iyo fahamkii isku xidhxidhka siduu ganacsigu u dhismayo iyo siduu macquul u noqonayo inay marar fara badan ay ka maqan tahay arday jaamacadeed baa tihiin waxaan idinku dhiirigelin lahaa inaad tababarada ku saabsan qorshaha diyaarinta qorshaha ganacsiga iyo sida businesska loo maamulo inaad runtii mar intaydaan tartanada gelin aad xoog isaga dhistaan iyo sida brobosalada loo qoro taasi waxay keenaysaa marna waad soo taagantahay oo waad hadlaysaa marna waxaad qiimaynaysaa brobosalka ama maaragtay warqadda halkan taalla taasi runtii waxay idinka caawin doontaa ganacsiga aad si dhaba u gelaysaan inaad si fiican uga fikirtaan oo mugle oo miisaan leh oo su'aalaha halkan lagaa weydiin doono ay kuu fududaato marka dambe inaad si fiican uga jawaabto runtii in ganacsi laga fikiro waxay ka dhigan tahay inaad shaqo abuurayso inaad ka fikirayso kuwo kale oo walaaladaaya oo sidaadoo kale wax baranaya inaad fursad shaqo u abuurayso aad waxaan idinku sii boorinayaa ama caawa ku guulayso ama habeenka dambe qofka ha caawa guulaysta ha ku sii guulaysto ama intiina kale ee halkan maaragtay ka tegi doonta fikirada aad soo jeediseen inaad ka midha dhalisaan ganacsi aad u raadsataan maaragtay maalgelin iskuna daydaan inaad noqotaan shaqo abuurayaal ee aydaan maaragtay aad uga fikirin inaad noqotaan shaqaale salaam calaykum madaxa barnaamijka kusoo dhaweynaya بسم الله الرحمن الرحيم runtii waynu u mahadnaqaynaa guddida qiimaha badan muddadayna la joogtay runtii sida qiimaha badan runtii muxuu ahaayey su'aalaha idin weydiinaysay dabcan guddida waxaan ku soo xolanay waa aqoontooda iyo iyagoo ganacsiyada guulaystay runtii ka shaqeeya hadda tartamayaasha caawa runtii muxuu ahaayey arday aad u wanaagsan barnaamijyo aad u wanaagsan soo bandhigay dhammaantood waxaan leeyahay waan hambalyanayaa halkana guul iyo guul darro laguma kala qaadanayo waa khibradii aqoonuma lagu kala qaadanayaa barnaamijyadiina hadday guulaysaan haddii kaleba waa sii wadan kartaan runtii qaarkiin way sii wadaan hadda inaad halkaa kasii wadaan baan runtii idin rajaynayaa waxaan barnaamijkan loogu talagalay waxa weeyaan in runtii dhalinyarta dalka jooga ee niyad jabsan in badan oo ka mida ay ku mashquulsan yihiin facebook iyo qabyaalad inay ka baxaan oo innagu aynu noqono runtii dad muxuu ahaayey dhalinyartiina aad u noqotaan dad runtii maxaa ku hirsadaan ay ku higtaan oo ayaguna runtii uu galo damaca inay wax keeni karaan inay tartamaan inay barnaamijka keenaan marka runtii waxaan runtii rajaynayaa doorarka sanadaha ka soo socda inay lacagtu intan kasii badato ardaydu intan ay kasii bataan xukuumadda laftigeedu ay soo dhex gasho oo qayb ay ka noqoto runtii maxaa ahaye gobolladana ay gaadho ayaan runtii rajaynayaa dadka daawanayana runtii waxaan ku baraarujinayaa dhalinyarta qiimaha badan cid alle ciddii mashruuc ka mid mashaarada lasoo bandhigay ka heshay inay runtii ka qayb qaataan oo cidda ay la soo xidhiidhaan oo wax kala qabtaan iminkana runtii waxaan ku dhawaaqaynaa muxuu ahayey natiijada projector iyo shaashada halkaasinu ka wadeegi doonaa natiijadii dhibcihii hore xubnaha guddiga halka fadhiya waxay go'aan ku gaadheen markii ay eegeen codayntu sida u dhacday hanaankii ardayda wax soo bandhigeen iyo qiimayntii u dambeysay halkan ka dhacday in dhibcihii hore ee ay soo saareen ana waxba iska bedelin oo go'aankii hore ay ku qaataan natiijada horena aynu eegna ardayda halkan inay ku kala baxaan waa tahay ardayga hore ama jaamacadda horeysa adal university oo magaalada boorame ee gobolka awdal ka socota waxaa ku tartamaysay amaal iyo saaxiibadeed waa strex playground cabdi yuusuf ar oo qiimayntii horeysay bixiyey waxa uu siiyey 55 cabdiraxmaan buraale 45 ismaaciil aadan macaad 50 qiimayntii hore ama wareegii koowaad 150 bay heshay halka dambe waxba ayaa haddana iskama bedelin cabdi yuusuf ar halka cabdiraxmaan cali hesi ay 5 ku biirtay ismaaciil macaad oo isagu markii hore ka tisiyeen ay dib uga gooday natiijadii dambena waxay noqotay 50 halkaas markiskeedu dibay waxba mu bedelin adna aadan university halkan waxa ugu tartamay arday ay asmikow ka ahayd qurux bile event decoration cabdi shar markii horeysay wuxuu siiyey 50 cabdiraxmaan cali hesi 50 ismaaciil aadan macaadna wuxuu siiyey 45 bay heshay markii dambe dhibci waxba iska bedelay cabdi shar wuxuu siiyey 52 halka cabdiraxmaan cali hesi 55 siiyey ismaaciil aadan macaadna uu siiyey 50 157 ay tagtay markiskeedu dambeeyay waxaan u gudbi doonaa jaamacadda Rift Valley oo arday ku tartamaysay daryeel diabetes hydration waa xamse samaha xamse
qiimayntii horeysay halkan loo sameeyey cabdi yuusuf wuxuu siiyey boqolkiiba 55 cabdiraxmaan cali hersi boqolkiiba 55 ismaaciil aadan macaadna boqolkiiba 55 halka markii dambe cabdi yuusuf shan la noqday cabdiraxmaan cali hersina 5 buu dib u la noqday ismaaciil aadan macaadna 55 hore bixiyay waxba kama u bedelin natiijadii hore oo ahayd 165 waxay dib isugu bedeshay 155 Golis University oo ku tartamaysa badbaada company oo ardayga garabka ka taagan isaguna xamse labaad waxa uu helay markii horeysay boqolkiiba 40 buu cabdi yuusuf siiyey cabdiraxmaan cali hersi boqolkiiba 35 ismaaciil aadan macaadna boqolkiiba 40 totalkiisii guud markii hore qiimayntii koobaad waxa uu helay 115 qiimayntii labaad markii la tagay cabdi yuusuf wuxuu siiyey 41 cabdiraxmaan cali hersi 35 kii hore ismaaciil aadan macaadna 40 kii hore waxa halkaas ku beeray hal waxaana noqotay qiimayntiisii u dambeysay 116 tiimkii u dambeeyay oo ahaa gobolka Sanaag ka socday oo ahaa Fooxla Product qiimayntii horeysay cabdi yuusuf uu bixiyay waxa uu siiyey boqolkiiba 55 cabdiraxmaan cali hersi wuxuu siiyey boqolkiiba 60 ismaaciil aadan macaadna boqolkiiba 60 175 buu wareegii koobaad helay markii dambe cabdi yuusuf 5 buu ku daray halka cabdiraxmaan cali hersi 60 ismaaciil aadan macaadna 60 kii hore bixiyay uu 5 kala noqday waxaan jeclahay guulayso dhammaantiin bayna arkaysaan inta warbaahinta kala socota iyo inta madasha ku siinay guddiga halka fadhida waxaan jeclahay walaalkay inuu hambalyeynaa Fooxle oo ahaa Maxamed Saalax oo gobolka Sanaag iyo jaamacadda gobolka Sanaag ku tartamayay waanu hambalyeynayaa amal baan ka soo bilaabayaa in kelmadii aan siiyay dareenkeeda caawa iyo halkan waxyaabaha kula kulantay iyo sida natiijadu u dhacday marka hore waan tijaabiyey fikirkaygii wuxuu ahaa fikir yacni shaqayn karaya oo magaaladeediina ku cusub haddaan halkan waayeyna waxaan tijaabin doonaa inaan meelo kale ka suuro geliyo waanan u hambalyeynayaa inaan kaa guulaystay walaalka bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley kubaddu waa barcad iyo barmadow afarteeda mid kastaaba muu guulaysanayay inna midunbaa guulaysanayay aad baanan ugu faraxsanay inaan ka qayb galay barnaamijka oo aan soo bandhigay business planka guushuna macnaheedu ma aha inuu qofku maarkiis sare u qaato ama uu lacagta ku guulaysto tijaabinta laftarkeeda guula marka walaalkay waan u hambalyeynayaa hambalya baan ku leeyahay dadaalka halkaa wareegii labaad baa hadhay wareegga labaadna waxaan rajeynaa inaad guul ka keento bismillaahi raxmaani raxiim horta gar laba nin kama wada qosayso walaalkay waxaan leeyahay waan kugu hambalyeynaya horta anugu meesha in meel waxaad fikirkaaga kusoo bandhigtaana halkan imkaan joogno kaliya maaha meelo badan baa jira fikirada lagu soo bandhigo insha allahu tacaala anuguna ka hadhi maayo horta fikirkayga ah inaan dadkayga badbaadiyo insha allahu tacaala dee ganacsigaaga markuu ka imaado ceerigaabo gaadiidka kuu soo qaaday hargeysa kuu keenaya insha allah isagoo bad qaba inuu imaadaan jecelahay aad iyo aad baad u mahadsantihi walaalkiiba bismillahi raxmaan raxiim horta sidoo walaalkii xamed soo sheegay sidii laba nin ka wada qosliso awa shanteeda kooxood baan tartan shanteeda nin halka taagani sida caadiga ahna waxa ahaydun inuu hal qof naga soo baxo marka halkii qofna wuxuu noqday walaalkay maxamed saalax marka koobaad isagoon hambalyeynaa afarteeda kalena waxaan leenahay maanu guuldaraysan kaliya waxaanu baranuun maxay waanu tartanay tartanka qudhiisu waa guul inaad tartanto fikrad abuur karto oo wax isku daydayna waa guul marka waxaan leenahay afarteeda kalena maanan guuldaraysanne waxaanu halkan caawa kala tegi doonaa inaanu baranay maxay cashar aanu ka baranay qaabka aad ganacsi aad u hirgelin karayso waxyaalaha ka horman karaya iyo sidoo kale waxa ganacsigaagaas khasaare ku keeni karaya marka anaguna waxaanu barnabaan u leenahay walaalkay maxamed saalaxna waa aad baan u hambalyeynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan salaamayaa guddida wakhtigooda qaaliga ah runtii dhalinyarta runtii masraxa taagan fikradooda bandhigaya inay dhegaystaan kala saaraan runtii wakhtigooda siiyey ma garanayo waa dee niman maalqabanoo bajad ma qaadanayaano waa nimankaa wakhtigooda inoogu huray runtii waxaan kaloo aad u salaamayaa muwaarig aar muwaarig aniga wuxuu yahay role model runtii fikirka maanta aan Fooxla Product aan ku soo jeediyey bulshada horteeda iyo intana daawanaysaaba ay maqashay waxa iska leh runtii inaan halkan nimaadno muwaarig aar waxaan kaloo u hambaliyeynayaa bangiga Premium Bank oo aan rajaynayo fool baa haysa bangigii ku dhali doono inaan noqdo insha Allah tacaala dabadna aan raqiisin waxaan rajaynayaa inaan guuleysan doono bangiga laftiisana noqon doono proposer runtii gabagabada
runtii noqda brobosor guuq noqda way jireen waan dareemayay khaladaad yar inaan galay haddaad moodaysa inaan ka guulaystay waxaan hadda notebooka ku qorayay khaladaad runtii stagku iga lumiyey marka oo weliba laakiin brobosorka si fiican ugu qoran marka su-aalo lagu boobo professorka ku helaana waad isku yara dhex yaacaysaa marmarka qaar waxaan rajeynayaa inay intaasina khibradii noqon doonto intaan reedgareeyey waad mahadsantiin warbaahinta maantoo dhan taagneed aan fadhiisanayo waryahaba wasalaamu calaykum raxmatullahi aad baan maxamed saalax ku hambaliyanayaa waan idiin mahadnaqayaa waxaan ku faraxsanay imka dhalinyaro aad u daayar yar oo in badan oo kamid intii halkan ku tirtay masaaga yaraayeen in mar walba halkan ku kulanno taasina waxaa kutusaa maalinba in dadkeena bulshadeena ay ka soo baxayaan aqoon-yahan daayar dad halabuur leh islamarkaana ay sii badanayaan dadka curinta leh oon lagu daynin dadkii hore u sii jiray fikrada aan ardayda damaanayn iyo jabin oo maalin walba ardayga secondary ku jiray jaamacadda soo galayahay isagoo jaamacadda galaaskii koowaad ama galaaskii labaad uu tartamo oo yimaado halkan oo guuleysto kadibna isagoo jaamacadda ku jira ganacsigana sameeyo hawshiisuna ay halkaasi ka marto waan u hambalyaynayaa bangiga caalamiga ee Premier Bank oo si joogta u maalgeliya barnaamijkan professor Mubarak Ibrahim oo ah madaxa barnaamijkan xubnaha guddiga ganacsatada ugu horeeyo Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdi Yuusuf Aar Ismaaciil Aadan Meecaad iyo howlwadanada warbaahinta kala duwan oo iyaguna taagnida ku dhamaystay muddadii halkan aynu joognay marna aan kursi ku fadhiisan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa in collaboratorka halkaa fadhiya isaguna dhagiisa iyo systemkiisa sanqal kasta la socdo barnaamijka ka baxaysay inamada iyaguna halkan fadhiya ka socota jaamacadda Badar oo si dhow noola shaqeynaya hadday noqoto suugeynta tirada iyo guud ahaan wax walba waxaan si gaar ugu mahadnaqaynaa jaamacadda Badar oo barnaamijkan martigelisay hoolka quruxda badan oo agaasimeen ardayda qiimaha iyo sharafta badan leh ee barnaamijkan ka faa'iideysanaya macluumaadka isla markaasina qaybta ka inay dhiirigeliyaan daayirtii halkan taagneed intaas ayaan jeclaan ku soo gabagabayno waxaan dhammaanteen leenahay hambalyo maxamed saalax oo noqday guuleystaha gruubkii saddexaad oo ay ku kulmeen 5 jaamacadood ka kala socday gobolada Awdal Togdheer iyo Sanaag dhammaantiin baa hambalyo habeen wacan oo wanaagsan Ramadaan Kariim walaal safarkaygii Turkiga saacadaha ka hadhay lacagta inta leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan ku sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sadaqii ilbaxa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha ku daba sidaysaa oo aan koon baba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya balina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idin ka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel